بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ولا ليال موضوع رومانتا إن لو ذاك يا وحيت هاي صاحبك دورك صاحبك وكلية هاي نرش قفك سان أجنا هيبا الدنيا ذا قفك استا كمان مارمو إنه دد لفل قالوا أما دد ولا صاحبه أما دد ولا صعده ما دام تاسي أجرت شريعتنا وحيات اهتمام جار أسيسي دد كلا لصاحبه يو دد كلا لرقمه يو صفاتك درجاتك اللي جارو نبينا صلى الله عليه وسلم مركو كهدلاي صاحبك وحولها المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. قفك وحوليه أما لهانا يعني دين صاحبكيس هاسكفيري متكين قفك أولا صاحبه صاحبك قفك أدل صاحبي سواء إنه هذا قف مركزتا إلهي لنكيس كوجيدا حمانتا iyo waxyaabo aan wanaagsaneyn ka dheereeya qofka saaxiibka la rabo in la saaxiib waa qofka noocaas ah markastana inaad laazimtid la joogiisa. sidoo kale hadaan tusaalooyin soo qaadano saaxiibada doorka ay ku leeyihiin nolosha qofka ah waxaan tusaale u soo qaadanaynaa qisadii Uqbah ibn Mu'ayd iyo Ubay ibn Khalaf. waxa la yiri in Uqbah ibn Mu'ayd ayaa wuxuu tacaam u sameeyay Quraysh nabiga ayuu wacay sallallahu alayhi wa sallam. nabiga markii uu cuntadii u dhabeeyay nabigu wuxuu dhahay cuntadaada ma cunay illa hatta tashhada anni rasuulullah illa aad qirtid inaan ahay rasuulka alle. Uqbah maadaama nabiga dayfkiisu uu yahay uu ka aqbalay tawxiidkii ayuu ku dhawaaqay kadib nabiga cuntadii ayuu cunay. arinkii ayaa magaaladii dhaxfaafay magaaladii Makka in Uqbah uu nabi Maxamed uu raacay tawxiidku ku dhawaaqay. arinkii waxa maqlay saaxiibkiisa Ubay ibn Khalaf markii uu maqlay buu yiri uu tagay saaxiibkiisa uu weydiiyay ma iilatay oo diinkaadii ma ka iilatay markaas wuxuu ku jawaabay Uqbah maya ninka gurigeyga ayuu joogay ina waana ka diidi waayo cuntadeedina uu diiday illa aan asaga aan ka qiro inuu cuno. markaas wuxuu ku yiri wajigaaga iskuma fiicna illa aad nabiga sallallahu alayhi wasallam aad ka andhuuftid oo aad luqunta kaga istaagtid. Uqbah arinkii saaxiibkiis uu ku waaniyay ayuu soo qaatay nabiga ayuu u imaaday alayhi salatu wasalaam aan dhuuf ayuu ku tufay wuuna ku istaagay. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ballan qaaday in uu gacantiisa ku dilayo. ficlan weyn dhacdo waxa lagu dilay dagaalkii Badr ee nabiga wuxuu ka adeejiyay Ali ibn Abi Talib halkaas ayaa lagu dilay Uqbah iyo saaxiibkiis. marka wadadii wanaagsaneed ee Uqbah uu agta saaray inuu ka leexdo waxa sabab uu ahaa saaxiibkiis. إلهي نحوك سدجي آيات كسورة الفرقان إلهي أوليه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. مركا كسداسي Uqbah ibn Mu'ayd iyo Ubay ninkii yiraahdo Ubay ibn Khalaf waxa ku jirta fawaa'id ama qisas aad u weyn. Uqbah markii nabigu uu raacay alayhi salatu wasalaam oo tawxiidku ku dhawaaqay ee wadadii wanaagsaneed lugta uu saaray inuu wadadaasi wanaagsan ka leexdo waxa sabab u noqday saaxiibkiis. marka meesha waxa fahmaysaa go'aamadaada iyo dhaqankaaga doorka uu ku yeelan karo saaxiibkaaga. sidoo kale qiso kale dhacday nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu saaxiib lahaa baaliir saaxiib ka dhigtay wiil yar oo yahuudi ah. wiilkii baa xanuunsanay wuu tacbaanay isagoo tacbaan ah oo markaasi xaaladiisa dhimasho ay ku dhowday sariid sara ayuu nabigu yimid alayhi salatu wasalaam. nabigu tawxiidka ayuu u yeeriyay wiilkii tawxiidka ayuu ku dhawaaqay sidaas ayuuna ku dhintay. kadib nabigu wuxuu dhahay alxamdulillahi alladhi anqadahu min an-nar waxa maad iska le allahi ka badbaadiyay naarta ka badbaadiyay maad iska le. marka unugaas yarna inuu wadadii wanaagsaneed uu ku hanuuno uu ku dhinto waxa sabab u noqday saaxiibkiis. marka halkaas waxaan ka fahmaynaa doorka saaxiibka uu ku leeyahay nolosheena markasta inaan iska fiirino dadka aan la saaxiibayno ama aan la dhaqmayno. ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. dadka saaxiibada ah qaarkood qaarka kale waxay u yihiin cadow maalinka aakhir markii la gaaro dadka oo saaxiibada ahaa
oo xumaanta iyo saaxiibada ku ahaa maalinkaas waxay isku noqonayaan cadow ay isku noqonayaan dadkii wanaagsanaa ee khayrkii wanaag saaxiibka ku ahaane maalinkaas iyagoo faraxsan ay saaxiibtinimadooda soconaysaa waay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu miisaali uu tusaale uu ka bixiyay saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun saaxiibka wanaagsan wuxuu ku tilmaamay ka xaamilil miski qof miski wax carfaayo haysta qofkaas inaad laazimtid nabi wuxuu ku tilmaamay waxa ka dhalanaysa saddex shay imma an yahdiyak inuu ku hadiyo wixii wanaagsan uu ku hadiyo wa imma an tabtaa'a ama inaad ka iibsatid wa imma an tajida rihan tayyiban ama inaad ka heshid riix wanaagsan inaad ka heshid saddexdaas mid kamid ah hadaad ka heshidna saddexda waa faa'iido mid aad ku faa'iideysid waay sidoo kale nabiga qofka wuxuu ku tilmaamay naafiqul kiirka in aad wax ka faa'iideys inay noqon karto in dabka uu afuufaayo dhimbilaha ka soo booda inay dharkaaga gubaan ama inaad ka heshid riixan khabiithan ur xun inaad ka heshid marka meesha waxa ka fahmaysaa nabiga xadiiska aad ugu bayaaniyay labada qof ee saaxiibada ah si ay u kala duwan yihiin qofka saaxiibka ee wanaaga aad ku raacdid markasta waxa ka faa'iideysid waxay yihiin wax wanaagsan qofka xun aad saaxiibka la naqatayna markasta waxa aad ka faa'iideysid aad ka helaysid waxay tahay wax xun maxaa yeelay hadii aad la saaxiibtid qof wanaagsan oo cibaadada ku wanaagsan ixtiraamka waxbarashada ku wanaagsan hadii aad la saaxiibtid adiguna waxaad noqonaysaa qof wanaagsan ayaa noqonaysaa hadii aad la saaxiibtid qof aan cibaadada ku wanaagsaneyn ixtiraamka aan ku wanaagsaneyn waxbarashada aan ku wanaagsaneyna aadna waxaad maraysaa wadada saaxiibka yani markasta qofku waxa uu leeyahay dhaqanka saaxiibkiisa sida nabiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waxaan loo baahan yahay walaalayaal markasta inaan iska fiirino dadka aan la saaxiibayno yani ma dhici karto qofka inuu kali noqdo markasta kaligiis uu ahaado markasta qof wuxuu u baahan yahay saaxiib la doortan waxa uu wanaagsan midka cibaadada iyo khayrka kugu hogaamiya Abu Dar wuxuu dhihi jiray radiyallahu anhu as-saahibu as-salihu khayru min al-wuhda saaxiibka wanaagsan wuxuu ka khayr badan yahay kali ahaanshaha inaad kaliga ahaatid oo kalinimo aad ku jirtid waxa ka wanaagsan inaad yeelatid saaxiib wanaagsan wal wuhdatu khayru min jalisi su'bu yiri kalinimadan waxay ka wanaagsan tahay inaad saaxiib xun la saaxiibtid intaad saaxiib xun la saaxiibi lahayd waxa ka wanaagsan inaad kali ahaatid qof kali u nool inaad ahaatid marka walaalayaal aayaadkaas ahadiistaas inta waxaan ka fahmaynaa qisooyinkaasi doorka uu leeyahay saaxiibka markasta inaan iska fiirino dadka aan la saaxiibayno oo aan markasta aan u dhawaano dadka wanaagsan ee cibaadada iyo khayrka ee cilmiga ku wanaagsan inaan u dhawaano si khayrkooda iyo wanaagooda aan u helno markasta aan ka dheeraano dadka aan wanaagsanayn ee cibaadada adduun iyo yani acmaash adduun iyo aakhirab aan ku wanaagsanayna inaan ka dheeraano maxaa yeelay qof noocaas ah oo adduunyada iyo aakhirada aan ku wanaagsanay hadaad la saaxiibtid adiguna waxaad noqonaysaa dib jir isaga oo kale ah maxaa yeelay saaxiibka qofku wuu jiitaa markasta saaxiibka door weyn ayuu ku leeyahay nolosha marka walaalayaal nafsadeena waxa ugu dardaarmeynaa inaan markasta aan u dhawaano aan la saaxiibno dadka wanaagsan dadka aan wanaagsanayna inaan ka dheeraano هذا وإلى اللقاء وشكر الله حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.